laba qisa ay soo martay oo midda koowaad aniga macallin oo iskool dhigaya oo iskool Hayle Bariise u dhow anoo dhigaya maalin maalmaha kamid ah ee waxa yimid malaha 6 nin oo isla socod oo kulligood culimo ah ma aqaano markii yimaadeen waa la soo magac weydiiyay marka hore magaca ay soo weydiiyaan qofka ay rabaan inay maartay wax magaca la soo weydiina magaca marka la soo weydiiyo ka bacdi adiga magaciisa la xafidsan yahay lagu imaana marka waxa leedahay ninkan aad weliga arag ee magacaaga yaqaana waa xoogaa maartay ka bacdi maalin ay yimaadeen nin waxa la soo hormariyay oo markaas raga dila fiirsho aslada ugu heebad rooya garweyn la soo hormariyo cado marka waa islaamay wuxuu Sheekh Abdullaahi adiga miya markaas aan irahaa iskoolkana wax ka dhigtaa oo ku aragnay xalay waxaan kugu arkay yiri taxta samada hoosteeda taxta arshiga hoostiis aan kugu arkay anigi marka waa yaab ninka marka hore waa islaamay si fiican u islaamay salaanti kadib ayuu wuxuu ugu bilaabay wuxuu yiri maanta adan ku martinahay waa inaad ziyaarana siisaa waxaan sirnaa nimanka culimada ah maanta toosi bas maamulka u tagay lacag yar oo 200 miya waxbaan uga qaaday oo shilin Soomaali ah waa si markaan sawiirtay ka bacdi ayaa baxeen niman culimo ah caadi ah oo markaas xagaa ikraam u baahan oo maaragtay ayaan u haystaa ka bacdina nima la soo diray ninkii yiri mid kamid oo la socday maalin kale miyaa mise maalin kale waaye ninka dhalinyarada iskoolka u yimid markaas yiri maaragtay waa sheekhi aan tagaynaa ka bacdina waa soo baxay guri waxaan imid oo filaa oo banaan oo cidina joogin oo saga kaliya uu joogo meeshii aan la fariistay markaan fariisanay xoogaa maaragtay biyo la siiyay biyo markaan cabay ka bacdi ay barasho wanaagsan halkaan joognaa sidaas waay markaas culimadana kida waa lagu akhriyay wixii ka dambeeyay iskoolka maalin dhaaf lagu maajir maalin dhaaf markii lagu yimaado lacagtu waa dhiiba kana leeyahay aduu 200 300 ما shilin Soomaaliya bal qaada jiray barigas dollar lama qaada jirin ardada dollar kama qaada jirin ma wala qoon badan dollar waa 2005 marka marka labada gelina shaqay jiray lacag fiican qaada jiray reerka ku filan 20ka intii sa gaarin lacagtu eber nimankaana ku tagtay nimankaas biilays nimankaana biilay nimankii waa kala bixin marka nina igu soo haray ninkaas waa ninka ay cuna hal sano iyo 8 bilood oo cunay mar alla marka imaado jaadon sigaar doon raashin doon dhar doon waxaas intaas lacagtaan ku soo gadaya lacagta hadii aan waayana waa soo diinsanaya marka anigi dhamaan marka waxaan noqday inaan ka tago dhar iyo dhogor waan ka tagay naf iyo nolol waa ka tagay biilki ilmahayga waa ku tagay anigi marka waa iska socdaa waxaan ahay remote control iska noqday kadibna waxay ugu dareed wuxuu deganaa meel la yiraahdo Damaayo ayuu deganaa iskoolkuna waa meesha aragtay oo Hayle Bariise warshada baastada iskoolka hadaan ka imaado direct isagaan u aadaa ilmihii wixii xaafadii ma ku laabanayo markaan isaga u tago ayuu ii soo dirayaa jaado ii soo diraa balaagsiyaan imaana lugan ku imaana gabaranu imaana jaadkanaan leeyahay lacagti keen ma hayo lacag jaad ma dhiibi karo waa lugayna hadana isagaan u tagaa waa laga soo diiday ma laga soo diiday warqad yar oo soo qaada
lambaro ku dhiga lambarada markuu ku dhigo inta la alaabo wuxuu leeyahay qaad jaabka geli u tag gabadhii haddaan u tago waxaan walaalahay waa kugu soo noqday saxantada markaas tirada deyntina waa kugu badatay bal hoobal Cabdullaahi oo sheekha la ileeyay markii dama xalina adig jaadkan ma cuntide yaa u wadaa kasaayro nima u wadaa way in sheekhan u wadaan leh ninku ma tukanayo salaad ma tukanayo marka nin diran Soomaaliya aniga waa mursalaan waa dirana marka heer waxaan gaaray aan dharkeygii saacadeydii macawisaydii aan jaad ku bedelo أنا عنين ما أنت ما قبل ولا حرت قري حبس قري أقول تورت تري حوالي سي كبعدي سكول أن جوجل اللي يجري شغدي حوالي إن كان العاقون غبا عاقو جات كوغاتي هذا عدة دونا هو قاده سكول اللي يجري مركا أنا بتيه سجى جربه ninka inta diila kuuranayay ka soo taga kulliyada jalasiyaad ee balaag si yimaada ee waaya ee hadana laabta ee hadana warqad loo soo dhiibo markii dambe wuxuu yiri waraaqihii inta ii dhiibo jirjaabka kugu jiraan qofkii ay wax weydiiso ayadaaba ku soo siinaysa markaasan dadkii deyn nag uga dhiga 21 milyan oo deyn ay gashay oo hadda oo maartay waxna anigu aan lahaa waxna aan dadka soo qaaday iyo biilki iska badaa wixii dhamo cidina waa yaabeen maxaa ku dhacay leey maalinta dambe adigu masaajid khudba ka akhrinayay culimadii waxaan yiraahdo quraan hal saaro waliba qof kale ay yiri quraan hal lagu saaro maana anigu maartay marka asaga laftirkiisu wuxuu ugu maaweelinaya waxaan yiri deyntii waa badatay lacagtu waa badan tahay lacag badan aan la kuleeyahay sida waaye sheekhow waa la bixinayaa leeyahay waa la bixinayaa waxaad keentaa kartoonka maarto caanaha lagu keeno koostada kartoonkaas keen kartoonka asagoo maran ha keenine soo wax ku jiraan keen sonkor iyo bariis iyo wax adeeg yar ku jira keen haddaan keeno guriga imaado iska baxa leeyahay caawa dila kuray biri lacagtaada waa helaysaa sidii maalinta quraanka la saaray xoogaa culays iga kacay culays marka uga kacaan tagay xaafadii marka uu tagaa waxaan yiri sheekhow intaan ka badan ma sii wadi karo intaan ka badan ma sii wadi karo marka lacagtii in la bixiyo loo baahan yahay in baashan barnaamijka maarat markaasuu siirey orninka xoogaa maskaxda u soo laabatay maxaa jira waay